xaflad lagu dabaaldegayay maalinta la aasaasay maamulka Puntland ayaa xalay waxa lagu qabtay magaalada Cape Town ee waddanka Koonfur Afrika. xaflad siyar sare loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen culimo u diin, ganacsato, odayaal dhaqameed, fanaaniin, saxafiyiin, haween, dhalinyaro iyo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ku nool waddanka Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Cape Town. xafladani oo daha looga rogaa ayada Qur'aanka Kariim ayaa waxaa xigay khudbad dheer uu jeediyay gudoomiyaha jaaliyadda Puntland ee magaalada Cape Town Mudane Cabdullaahi Ibraahim Desir oo ka hadlay taariikhda maamulka Puntland xilligii la aasaasay iyo waliba ilaa hadda waxay marxaladii ay soo mareen. waxaan mahad gaar u celinayaa dadweynaha Soomaaliyeed oo sida tayada leh u imaada halkan iyagoo doonaya inay arkaan walaalahooda Puntland xafladda ay soo qabanqaabiyeen ay ugu talagaleen inay ku soo bandhigaan waxqabadkooda iyo waliba sanad guurada 13aad ee Puntland. salaad dabadeed waxaan halkan u soo istaagay inaan caawo aan idin soo gudbiyo taariikhda Puntland bilowgeedii iyadoo gudoomiye ku-xigeenka jaaliyaddu oo idin dhameystiri doono inta ka harsan. kasoo qaybgalkiinu aad ayaan ugu riyaaqnay. waxaan rajaynaynaa in aan wax badan aan la qaybsano bulshada Puntland, adinkuna aan la qaybsataan oo aan isla wada qaybsano maxaa yeelay Puntland waa Soomaaliya mana ahan meel ka baxsan Soomaaliya. macnaha haddii aad aragteen calanka Puntland oo Soomaaliya ka bedelan macna kuma dhisno. calankii way wadanaa, cadaanku ma aan wax bedelayo, waa nabad, greenku waa barwaaqada ka jirta. marka sidaa daraadeed Puntland waa Soomaaliya. sidoo kale waxa uu ka sheekeeyay taariikhda iyo dhulka baaxadda weyn uu ku fadhiyo maamulka Puntland. sidoo kale martisharaftii halka ka hadlay waxa ka mid ahaa nabadoon Yaasiin isla markaana ka mid ah ganacsatada ka soo jeeda reer Puntland ee ku nool magaalada Cape Town iyo waliba maamusureer gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Western Cape Mudane Cabdi Jiido, madaxa xisbiga talada haya dalkan Koonfur Afrika ee ANC Master Pat iyo waliba madaxweynaha hay'adda Sora Isxaaq Usmaan Roble iyo mas'uuliyiin kale oo aad u fara badan kuwa uu guud ahaanba ku dhaaraaday ka faaloonta maamulka Puntland iyadoo ugu dambeyntii ugu baaqay inuu horseed u noqdo nabad u raarinta xalka Soomaaliya. dhalinyarada iskugu kaaya soo duuday ee Puntland ku aftirsata si wanaagsan bay xafladda u soo qaabqaabiyeen. waxaan ilaahay ka rajaynayaa sanadkiisa kale sidaan ka sii ballaaran inaan la kulanno. Puntland waxaa weeye waa Soomaali, Soomaalina laba ma aha, Soomaali waa. ugu dambeyntii xogayaha guud ee jaaliyadda Puntland ee gobolka Western Cape ahna qabanqaabiye xafladan Hodan Cali Gurey oo u mahad celisay bulshadii ka soo qayb gashay xafladan iyo guud ahaanba marti sharaftii halkaasi timid. ummadda reer Puntland, ummadda Soomaaliyeed, meel kasta ay joogto, ummadda Islaamka ah, meel kasta ay joogaan, waxaan leenahay happy birthday Puntland. Soomaaliya ha israacdo, midnimo ballaaran, qaran aynu ku faraxno, waa mahadsantihiin. ugu dambeyntii xafladan ayaa ku soo idlaatay jawi aad u heer sareeya iyadoo dadweynaha ka soo qayb galeen aad u faraxsanaayeen. Cabdillaahi Qorshe, Royal TV, Cape Town, Koonfur Afrika.